warbixinada iyo wararka kale ee wariyaasheena ay soo dirayaan waxa kamid ah diyaarad waday rabahoon naxariistay meydka amanduulii hore ee ciidanka xoogga dalka General Abdikariin Yuusuf Dhagabadan oo maalnimadii shalay ahayd ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Ugaas Nuur magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Diyaaradda meydka waday waxaa la socday wasiirka difaaca dawladda federaalka Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo mas'uuliyiin kale, waxaana garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Saakir Cali Xasan iyo ku-xigeenadiisa. Sidoo kale soo dhaweynta waxaa ka qayb qaatay boqolaal kumid ah bulshada ku nool gobolada dhexe ee Soomaaliya. meydka intii aanan loo soo gudbin gudaha magaalada ka hor waxaa goobta ku hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolada dhexe, waxaana kamid ahaa wasiirka difaaca dawladda federaalka Soomaaliya. hadaladiisina waxaa kamid ahaa maanta halkan waxaan isugu nimid runtii nin qaaliya oo runtii ku qaaliya qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo ayadoon la siyaasadeynayn runtii mudan in la xurmeeyo mataqaanaa lana qadariyo doorkii ugu soo qabtay waddankiisa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana ay aad iyo aad runtii ay ugu faani karto. wuxuu ahaa shakhsi ahaan muwaadin muxuu ahaa caadil ah oo dadka markaa uu hogaaminayo ciidanka uu hogaaminayo dadka uu la dhaqmayo si caadilnimo ah kula dhaqmo ayuu ahaa. muddana aniga asaga waa wada shaqaynaynay, rag badan oo halkan joogana way wada shaqeeyeen. waxaan aad iyo aad uga tacsiideynaya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday ayaan waxaan leenahay samar iyo iimaan Allah ka siiyo. ugu dambeyn madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Saakir Cali Xasan ayaa uga mahad celiyay dawladda federaalka Soomaaliya sida ay meydka generaalka ugu soo gudbisay eheladiisa. maanta runtii waxaan isugu nimid tacsida ama geerida General Abdikariin radiyallahu anhu wa ardaah. ilaahay ha ka raadi noqdo. janaasadiisii ayaan dukanaynaa biidnillaahi alkariim, isagoo ahaa adduunyada dhexdeeda ilaahay miduu ku karaameeyey la dagaalankii khawaarijta oo uu ka xoreeyey caasimadda Soomaaliya iyo gobolada ku gadaaman iyadoo hore ay uga horeeyeen walaalihiis sida General Cabdiweli Orfane, labaduba raggii gobolada dhexe ka xoreeyay ay yihiin ayagoo walaalihiis gobolada dhexe ka xoreeyeen asaguna ku gacan siinayay iyo asaguna uu ka xoreeyay Muqdisho. marka asaguna waa dilay khawaarijtii ayaguna waa dileen. dawladda federaalkana waxaan uga mahad celinaynaa soo gaarsiinta ay soo gaarsiiyeen eheladiisii iyo dadkiisii iyo deegaankiisii ay keeneen si loogu aaso. dawladda federaalkana waa uga mahad celinaynaa, khaasatan wasiirka gaashaandhigga oo generaaladiisii ay kamid ahaa sida uu noo soo gaarsiiyey waddanka dawlad goboleedka gobolada dhexe ee amni iyo istiqraarku uu ka jiro, sida uu u soo gaarsiiyo loogu aasayo waa uga mahad celinaynaa. ugu dambeyntiina waxaa meydka salaada janaasada lagula dukaday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Shucayb Maxamed Cali, telefishinka caalamiga Somali Cable, magaalada